السلام عليكم ورحمة الله. وعبد الرشيد علي شيخ محمد وي سان إدين بلن قادي أحدي هربا قدي قال لي إسوع لي إنا كهل لي دونه رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حاسس كيسي إنا كهل لي دونه وانا إدين بلن قادي مركز إن شاء الله ما أنت وحان كهل لي دونه حاسس كي النبي وحايدي من مركز laba qodob oo kale aan ballan qaaday oo ahaa gaalkii ugu taajirsanaa oo adduunyada soo maray oo gaalnimo ku dhintay sidii Ilaahay uga hadlay iyo dadka inta rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadana ku andacoonaya waan waalanahay iyo qolo suuqa u gelinaysa inay waalan yihiin labaas qodob ay harahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. محمد رسول الله maalinkii hore qodobkii aan ka hadlay oo ahaa gaaladu waxay rasuulka ula dirirsan yihiin inay tahay tawxiidka uu keenay iyo shirkiga uu ka celinayo oo leeyahay shirkigan ilaahay ma ogola iska daaya iyo nacaybka ilaahay u qabaan inay kula dirirsan yihiin. waxa weeye marka waan ilaaway maalinkii hore waxa weeye warkaygan oo dhan waxa weeye ciwaankiisu Muhammadu Rasuulullah qaybtii koowaad Muhammadu Rasuulullah waa qaybtan ka soo hadlay maalinkii hadalkan labaadna waxa weeye oo aan ka hadlay xaaska nabigana waa Muhammadu Rasuulullah nabi Muhammad rasuulka Ilaahay way qaybtii labaad way waxaa noo dhiman marka laba qaybood oo kale
marka warkayga ciwaankiisa waxaa la yidhaahdaa aan ugu jawaabahayo qolooyinka rabbi caaya, rasuulka caaya, qur-aanka caaya, diinta islaamka caaya, xaaska rasuulka caaya, saxaabadii caaya. waxaa weeye oo ugu dambeysay gabadha malyuun loo yaqaano maraykan ku nool, dadkuna u garan og yihiin maama malyuun oo rasuulka cayday. qoladaas jawaabtii aan siinayay ciwaankeeda waxaa la dhahaa muxammadu rasuulullah. marka waa qeybtii labaad oo muxammadu rasuulullah ciwaankeeda ahaa. ilaahay wuxuu yiri nabi maxamed rasuulka ilaahay soo dirsaday wey. waxaan ka hadlaynaa qiimaha iyo sharafta uu ilaahay rasuulka siiyey nabi maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iyo mu'miniinta sida la rabo inay rasuulka u xushmeeyaan, u qadariyaan, u weyneeyaan, meeshii ilaahay dhigay aysan ka soka marin. xaasaskiisuna waa sidoo kale, oo rasuulku wuxuu u xisaaban yahay mu'miniinta aabbo kale, xaasaskiisuna hooyo kale ayay u xisaaban yihiin. waan gaari doonaa. gaaladii marka rasuulka ilaahay waxay yidhaahdeen rasuul ma tihid, ayagoo diidan qodobkii hore aan soo sharaxnay maalinka hore oo shirkiga ah in laga reebo diidan, oo raba 360 sanab oo u yaalay kacbada hadday yihiin qurayshtii nebigu kasoo dhex baxay oo alla ka soo saaray oo ka dhashay. waxayba yidhaahdeen marka ayagoo diidan shirkaas in laga kaxeeyo oo shirk kusii dheganaadaan, ayay waxay yidhaahdeen nebi maxamedow rasuul ma tihid sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ilaahu marka ka jawaabaya qaala tacaala, ilaahu ka jawaabaya marka oo ka marqaati kacaya inuu rasuulku yahay rasuul ilaahay soo dirsaday oo nebi maxamed rasuulka ilaahay yahay. bal hadda dhegeysa markaas, haddii ilaahay ka marqaati kaco magaalada qureysheed oo waagii nebigu la noolaa iyo kufaarta hadda joogta iyo munaafiqiintii waaguu nebigu la noolaa iyo munaafiqiinta hadda joogta, miyaa laga rabaa mataqaan caddayn? maya, caddayn lagama rabo. ilaahay baa caddayn ugu filan. qaala tacaala ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال دي وحي يرادين رسول متهد نبي محمد. إلهنا محير. قال تعالى قل وعاكوتر هذا، قل كفى بالله بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أني أدين كدحدنا وحا مرقاتي وغفلا إيبها وين أو واحد كه أو الله. ومن عنده علم الكتاب، dadkii hore u haystay tooreed iyo injiil sida cabdullaahi ibnu salaan oo kale, najaashigii mataqaanyama Ethiopia ka ahaa, boqor ka ahaa oo kale oo injiil yaqaanay, cabdullaahi ibnu salaam oo soo muslimay oo madiina nebigu kala noolaaba, oo shiikhi yuhuudiyad ahaa. raggaasaa yaqaana oo tilmaamaha nebiga garanaya inuu rasuulka ilaahi yahay muxamed, xilliguu soo bixi doono, meeshuu ka soo bixi doono, inuu kitaab qur-aan la imaan doono. waxaasoo dhan raggaasaa yaqaanay oo hore diimii hore loogu sheegay. qaala tacaala aayad kale qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illahu yashhadu qul illahu shahidun bayni wa baynakum وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. إلا ما أتكجارته
وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إلى هلكا كجارتو. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله يا مرقاتي أقوين. قل أي شيء أكبر شهادة مرقاتي عد لو قبصده أو مرقاتي أو دان وح مرقاتي فريا أقوين. قل الله إله بأقوين مركاس شهيد بيني وبينكم إله بأني أدين كمركا دحدنا مرقاتي كاوي وإن الرسول كيسي أحي مرقاتي كا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وحابل إيه وحيودي قرآن كان وهذا القرآن كان محل جارسينيا أدين كانوا والدين جارسينيا وحي كلو وجارنه وجارية. وآيد اللواد أو إلهي أكو مرقاتي أوفر يا رسولك إن أصور رسول أصادر صدق وياهي أنت عسان مرك وجتجينا مر هدي إلهي أقرأ إن رسول كيس أصور مرقاتي إن رسول إلهي صادر سويانا قالوا يا منافقين لوغان بهنا مرقاتك إني راعان أو أي قدر وجرته إني ديدان أو العذابه آخرية الدنيا وكاس. آيات كلنا ونودرنا مركا قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع لهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدح بأقدق بقى انت أصرنا وحي عداني يا رسولك إن رسولك إلهي هاي وحنوقد بينا مركا حاسسك رسولك انت نوقد بين رسولك حاسسك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إلهي وحور يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ذاتك إيمانك لغا هلايو وحق الرميو ربي يا رسول هرتود hadalka ha la hormarinina walaa ficil walaa qowl waxba ha kala hormarinina ayagaad sugaysaan wixii rabbi idin amro rasuulku idin soo gaarsiiyo baad samaynaysaan. bal hadda malaa'igtu maxay samaysaa? malaa'igta ilaahay agtiisa jooga bal hadda ayaga dhageyso waxay sameeyaan. qaala tacaala ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إلهي وحا سجوده مخلوق السموين كيدولك كسوغان وحي دولك سعوته ودن إيا ملائكة إسكمان وينيسيان إلهي إني أسجودان والملائكة وهم لا يستكبرون إلهي إنه سجودا إسكما وينيسيان يخافون ربهم مخلوق إلهي أروك صعده وملائكة كمتها وحاوي إله كسر رأيه وكركو ذا جرى وإلهي مخلوق سوى كسر رأيه فوق 7 سماوات بجرى عرشه كسر رأيه أيه كبقايا ويفعلون ما يؤمر وحوس أسوق أمر بس يسميان. وملائكته إلهي أكتيسا جوجتا إله مع عاسيان وأنا كبقيان وكركو دو جرا وحي أمر صوصيه بيفوليان. نبي كهل صلى الله عليه وآله وسلم جبريل كهل وحير هبينكي للمية وحن أركي عرشي هوسيسا جبريل أو ما تقانا سيدي صوف للف بحيي أو ضبيل روحيسو وقرقريري مركان ويجيني وحير بقدين إلهي أنك قبقوي وحال قرقريري وبقدين يعبسي الله أنك قبق asagoo sida ma taqaana suuf la laf bixiyay qafiif u ah oo macna asagoo dhan ma taqaana aan sida xaashida babanaya baqdinta ilaahay. marka malaa'igtu saasay u dhaqma ilaahay ma caasiyaan waxa laga celinaya caasinimo iyo mushrinimo iyo gaalnimo iyo munaafiqnimo waa jinnigi insiga way laakiin malaa'igtu wada ilaahay wada ku dhacday.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. markaad rasuulka la hadlaysaan baa ilaahay yiri rasuulka markaad la hadlaysaan sida adinka qaarkiin qaarka kale hadalka ugu taagtaaginna tartiib u hadlo hadal yar oo aad qafiif u ah inaad ku hadashaan way. yaa ayuha aladiina laa tarfacu aswaatakum fawqa sawti nabiy nabiga hadalkiisa markaa wada hadlaysaan ama adigu inaad la hadashid baa rabtid cod hoos u gaaba inaad kula hadasha way. war taagtaagan oo qaylaha oo dhaga jabisa lama rabo oo ixtiraam darra. haddaa saas yeeshaan an taxbad acmaalakum antum laa tashcuruun adinku ogeyn inaad gaalowdaan diinta ka baxdaan ayay noqonaysaa haddaad nebiga warka kor u qaadqaadaan. hadda waxay maraysaa malyuun gabadha le soomaaliga ameri ku nool oo adinku u taqaanaan malyuun inay rasuulka caydo bay maraysaaba rasuulkiiba inay aflagaadayso oo haddaad caydo caaisha rasuulka waad caydo haddaad aad caydo sagaalkii xaas oo nebiga oo caaisha ka mid ahay mid ka mid ah caydo rasuulka waad caydo. marka maxaana la yiri qofka mu'minka ah oo ilaahay ku yiri cay horta ayada xagga iska dhig meesha kuma jirta gaalnimo la kordhabay la hoos dhigay la goday way. hadalka caadiga ah oo markaad wax weydiisanaysid ama aad su'aal diin weydiisanaysid ama wax adduun aad weydiisanaysid ama intuu wax kuu diro aad wixii uga warramaysid tartiib baad u hadlaysaa hadal hoose oo xamxamaad ku hadlaysaa oo aan dhaga jabis iyo akhlaaq xumo aysa ka muuqan. haddana soomaalidii maxay maraysaa inay rasuulkii caayaan kasii gudbaan ilaaha caayaan qur-aankiisii caayaan sunnadii nebiga caayaan xaaskii nebiga caayaan saxaabadii caayaan abubakar iyo cumar caayaan bay maraysaa. haddana muslim bay isku yaqaanaan oo soomaali isku yaqaanaan. dhaqankaana dhaqan lagu yaqaanaa gaalada iyo munaafiqiinta iyo shiicada wey inay rasuulka caayaan inay xaaska rasuulka caayaan inay caaisha caayaan inay rabbi caayaan inay qur-aanka caayaan inay sunnada caayaan oo duraan waxaa lagu yaqaan gaalada munaafiqiinta shiicada kuwaasaa ku caanbaxay. in aladiina yaquduuna aswaatahum cinda rasuuli llahi ulaaika aladiina imtaxana allahu quluubahum litaqwa lahum makfiratun wa ajrun cadiim. waka abubakar iyo markay la hadlayaan rasuulka lama maqli jirin qofka ag fadhiya ma maqlayo wuxuu rasuulku abubakar kula hadlayo. kuwaasaa ilaahay ammaano marka waa kuwo itixaan qalbigoodii iimaankooda ilaahay itixaan ka qaaday oo la dhilay wey oo xumaan laga dhilay oo la nadiifiyey. reer baadiyahan waxa ku dhacay fiiri marka nebiga inta guryihiisii yimid waxay yidhaahdeen goor duhurka iyo casrka udhexaysa noo soo baxa dan baan kaa leenahay. qaala tacaala إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات sagaalka guri dhabarkooda way isqaybiyeen ninba guri buu tagay rag badan bay ahaayeen. guryahaaga sagaalka dhabarkooda kuwa ka qaylinaya oo ku yeeraya oo noo soo bax ku dhahaya iyadoo xilligii duhurkii iyo casarkii oo xilli kuleyl ah waxba garan mayaan. reer baadiye waxaa weeyaan lama taqaanaa baadiye ka yimid oo aan magaalada madiine iyo rasuulka iyo waxay iyo saxaabada si u dhaqmaan garanayn. walow annahum sabaruu lakaana khayran lahum waxaa u fiicnaan lahay masaajidka intay iska tagaan oo rasuulka iska sugaan sala allahu alayh waali wasalam inay markaas uu salaada casar asagaa wadan ugu soo bixin markuu inta casarka soo baxo oo saxaabada tujiyo oo salaada ka baxo oo masaajidka fadhi markaa danahooda in u sheegtaan saasa u khayr roonayd. walow annahum sabaruu xataa takhruj ilayhim lakaana khayra lahum wallahu gafuur raxiim. ilaahay waa u dambi dhaafay ayuu waxba garan mayaan kuwa rimiiga. qoladii marka noo soo baxa nebigu yiri baa intaasu ku dhacday oo canaan ah. qofka bareer cad oo qayaxan youtube lacag aad ka heshid oo dad badan cayda nebiga intay daawadaan asaas lacag gaalada kuugu soo shubeen oo irsaaqad ka raadin cayda nebiga waxa weeye waa laba arrinba qofkaasu waa go-aansaday oo uu u diyaar garoobay. madaxa horta in laga jaro
ومسلم كدلان وديار قروبي إلا عيد النبي ودلوي وحكى عفسنا ماله ودلنا عفس لهين وعوكله وديار قروبي إلهي أدون كان إنه كعذاب آخرنا اللي عذابه ولا بعذاب إلهي سوق ضرب إلهي الرسول كيسوق عدي أفلاقادي سدين ما هي كهرم ما هي ودفاع عنها أدون كانوا وكد دفاع عن آخرنا وكد دفاعية مركا واقف أسوق عن صدي أو كتلا قلي إن أدون كانوا ونون كان لقوي مسلمين دلان آخرنا أدون كان إلهي كل عذاب آخرنا اللي عذاب أسجع معناها يا أرنتاس دي قفك أسجع ديارسه وفير ما يستوي وقف الدنيا نور نعيوي آخرنا كانوا نعي نار جهنم هذا hadduu iskeeno oo la dilo oo uu nabiga macna xaqiisii waa dil weeye uu naftiisii kanoo la dilo intaasay ku egtaa xaqii nabiga caydiisii laakiin gaalowgii uu gaaloobay ilaahiisay u taala ilaahay inuu ka aqbalay in kale ilaa cayda nabigu waa laba is saaran weeye waa laba qodob baa ka ratimaysa kow gaalnima ka ratimaysa qofka nabiga caaya wuxuu rabaa noqdo ama gaal ha noqdo ama munaafiq ha noqdo ama muslim horay u ahaan jiray ha noqdo wuxuu raba ha noqdo qofka caaya nabiga waxa weeye marka ugu horeysa horta diintu wuu ka baxay waa kow waa ku daayo qodobka labaad ununka in laga jaro way ama asagu iskeeno oo yiraahdo la dilo oo ama se la raadiyo oo marka la dilo oo soo qabato dawladda muslimka iyo ninka muslimka u sareeyo amiirka uu soo qabto la toogto way meel muslimka oo la isugu yeero maxfala si aan loogu dhiiran in nabiga la aflagaadeeyo reer baadiyihii baa waxaa lagu haystaa maxaad masaajidka u joogi weydeeno u sugi weydeen inta rasuulku uu soo baxay salaada casar kadibna su'aasha rabtaan aad u weydiisan weydeen inta waxaan kaga tageynaa xurmadii iyo sharaftii iyo qiimihii rasuulka xaasaskiisuna waa la mid waxaan hadda u tageynaa xaasaskii nabiga sagaalka qaala tacaala النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمن والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم نبي مؤمنين تنفتوضا أسايا كقالسا أو كوين أو كلوين oo qofka muuminka naftiisa nabiga naftiisa weyn xurmaha nabiga u weyn difaacan nabiga u weyn oo hadii la idin soo weeraro nabiga la socda waad isku dhigaysaa xabada waa isaga dhigaysaa oo falaarta waa isaga dhigaysaa oo waranka waa isaga dhigaysaa sababtu naftiisa taada ka qaalisan النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم حاسك نبي هو يدين وين ما هو يضع عايشة مركب إلين عائشة وهويدا دا مؤمن تاعي حداد عائشة عيدا النبي قد عيدي حداد سيديد كلو حاس أو رسولك عيدا هويدا بعد عيدي حداد رسولك عيدا آبها بعد عيدي مركا آبيه سيوس قفك عاي محو قيمة أوليه وأدون يا أخرى منه قيمة ليه قيمة ملاه قفك هدو آبيه هويدا وعايا هيو وح أدون يا أخرى وقيمة ليه ملا نهنا ملا وح جيرانا ماه waxaa rasuulka u soo dheer waradnimada haddana waa rasuulkaagii oo marka rasuulkaagii oo haddana aabbaha ah oo haddana naftaada ka qiimo weyn kaaga qiimo weyn oo naftiisa iyo naftaada aad hormarinayso oo haddaadan nabiga naftiisa aadan taada ka hormarin iimaankaagu ma dhammaystirna waa tii uu cumar ku yiri waan ku jecel taqaanaa rasuulka ilaahayow wuxuu yiri waan iimaankayga waa buuxa waxaa lagu yiri naftayda iyo naftaada ka jecesha naftaydan jecel iimaankaaga wali waa dhiman yahay wuu ka tagay waqti kadib uu soo noqday wuxuu yiri hadda naftayda iyo adiga nin naftaadan jecel hadda iimaankaagu dhammaystirma maalin marka hore ma dhammaystirin uu kala bar buu ahaa iimaankaagu inuu buuxaba wuxuu ku yahayba shuruud oo ku xiranba inaad naftaada ka jeclaato rabbi iyo rasuul oo wuxuu markay rabbi iyo rasuul soo gaaraan naftaadu inay ka qadiman tahay oo se wax qiimo agtaada kala ahayn oo adiga difaacayso oo nafta ay u bixinayso daraado
saasuu marka nebigu qiimihiisu waa rasuulkaagii waa aabbaha naftiisuna taada inaad ka jeclaato wey oo rabbi iyo rasuul waa inaad naftaada ka jeclaataa labadoodaba haddii kale iimaankaagu ma dhammaystirmo intaas waa xurmadii rasuulka iyo xaasaskiisii waxaan tegaynaa marka gaaladu xaaska nebiga maxay ka rabaan oo u leeyihiin 9 nin xaggee lagu arkay nin 9 xaas guursanay nebigu muxuu 9 xaas u guursaday leeyihiin waa ka sii gudbeen waxay leeyihiin Caaisha oo 7 sano muxuu u meersaday ama 6 sano haddana 9 sano ula aqal gala bal hadda dhageyso sida rasuulka iyo xaasaskiisii ilaahay uu ula hadlay qaala tacaala يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء حاسك النبي قو مؤمنين تكلا أو دمرك لمد متهدين وتكدوا وانتهين إن اتقيتن هذا الله كبقدان duwanaanshuhu waxay ku imaanaysaa inaad rabbigiin ka baqdaan aayadda marka waxaan ku sharaxaynaa aayad kale dhageysa marka qaala tacaala يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا حلقي النبي مدينة كنولا قاعد درن باكرتي فخري باكري عولاد باكري قالا ميل مدينة كدقن صور الرسي حالد وحي أهيد ميل قطر أيي مريسي نبي وحي له هلبا saxaabadu qaybin jiray asagoo faramaran buu guriga tagi jiray maalinkii dambe xaaska waxay yiraahdeen waa baqtinay gaajana dishay rasuulka ilaahay wuxuu yiri oo ma waxaad rabtaan inaan saxaabada inta wuxuu qaybiyo ayagii oo fayl iigu jira oo wixii aanu qaybinay inaan inta qaar ka soo qaado aan yiraahdo iska tag ayagoo qatan oo anigu marka adinka idin keeno anigu adduunyo danka malihiye laba mid soo gala lagu yiri fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila kulligii 9 kiino fayl soo gal waa idin furaya dad dunyarta anu adduunyo danka mali rasuul ilaahay baan ahay waxyi baan ku shaqeeyaa wixii ilaahay faray baan ku shaqeeyaa adduunyana anu danka mali gaajadeedii iyo faqrigeeda danka mali calooshayda dhagaxan isaga xiranayo anu 5 bari qatan ama 3 bari qatan hadaa saas hadaa raalli ku tiin oo digula joogaysaan waa idin qabaya hadii kala 9 kiinaba waa idin fasaxaya soo tashada marka waqti qaata Caaisha laga bilaabo radiyallahu anha umuna Caaisha waxay tiri walaa aabaan ula tagayn walaa hooyaan ula tagayn anigu rasuul iyo ilaah baan doortay adduunyana faraan kala baxa sideedii kalena sidoo kale yiraahdeen 9kii xaasba oo rasuulka adduunyo faraan kala baxaan rabbi rasuul iyo aakhiray doorteen adduunyo iyo dhaldhalkeeda way iska daayeen haddana milyuun iyo waxa la midka maxay rasuulka u caayaan YouTube-ka xoogaa inta Soomaalida ku daawato shilimada lagu soo lacag aad heshay 9kii xaas oo nabiga adduunyo iyo dhaldhalkeeda faraan kala baxaan rabbi iyo rasuul iyo aakhiray doorteen qaala tacaala يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله هذا ربي رسول دورتان والدار الآخرة دار الآخرة دورتان فإن الله عاد للمحسنات مدي إذن كمذا قبلنا المحسنات كرسولك قال من كنوا أذنك إذن كمذا وحال الصين يا واحد دون كان يدل لك سكوي وشندي بإلهي كور ساق يا آخر ماشي رسولك شند كتب بعد كلت لقى لسانوي وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عاد للمحسنات منكن أجرا عظيما أجر عظيم كوين وجنات فردوس ماشي النبي كجر وكجر باي 9 حاسب لا غليان halkaasay doorteen xaaskii nabi قال تعالى
يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. مركا لوسوتشست يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. مدي إذن كمدة سقالكينا كمدة أولاتي ماذا فاحشة اسكعب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة faaxishada la sheegayo sina kuma jirto, tuugo iyo waxaasna kuma jiraan, wax xunba kuma jiraan. waa amar diidaa laga hadlahaya oo rasuulka lagu amar diiday iyo waxyaalahaas laga hadlaya. laakiin xaas nabi ma sinaysan. ilaahay suu adduunku u abuuray nabi aan laga soo bilaayay nabi maxamed intuu dhaxaysay wax rasuul ah oo xaas u leeyahay nabi ma wa sinaysanba, mana sinaysan kartana. ilaahayba ma qorinba, loox maxfuudkaba kuma taa. waxaa ku tal inaysan sinaysan. ilaahay ma ogola. mar hadduu rasuul iyo nebi ilaahay u soo diro, rasuulkaas iyo nebigaas waxyaalaha ilaahay uu ku sharafo oo ku karamay waxaa ka mid a xaaskiisu inaysan sinaba shuqul ku lahayn. xataa qalbigooda kuma soo dhacdo, qalbigooda xataa kuma jirto wax sino ma soo gasho, xataa kuma riyoodaanba. xataa amar diida wey waxaan laga hadlaya, faaxishada laga hadlahaya. وكان ذلك على الله يسير. إلهينا وحب الله ما إنه لبن لابه عذابكينا أو سيالك حاس أو نبيك مركي دنبي قلان يجور مؤمن هذا مركي دنبي قاش أو صحابة لنا ولا نبي قلنا ولا كاملة اسكم بيد ما أيجي ولول بتشبارية صوت رسولك قبا وحادين عكلا هذه أشر لي مثلا أشر كنا والله لبن لابه إلى رسولك قبا وحدوا لبن لابه دنبي قلنا والله لبن لاب أشر كنا والله لبن لابه إلى وحاسك نبي هريبا أوصل مرنيان نساء النبي لستنك أحد من النساء صومه. adinka xaaska rasuulka ah dumarka muuminiinta la mid ma tihiin, wad ka daraja banti soo hor imaan soo maray. hadana maxaa la maray yaa nisaa nabi man yati minkunna bi faahishatin mubayyinatin yud'af laha al'adab ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. waday ku dhacaan marka sagaalkii xaaso nabigu inay wada ku dhacaan bal hada aayadan dhigaysa. qaala ta'ala turji man تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء تذهبته عاو كان حيمد سألك كم ده inuu caawo markuu ka dhacay habeen dambe u hooyay ahayd hadaa rabto hawo hooyan baa leeyahay habeen kale ugu sidar ka maqano. turji man tashaa minhunna wa tuwi ilayka wa tuwi midaad rabtana dhowr bari ka maqano, midaad rabtana u yeero oo ka mid ah ka soo qaad caawo kale in gurigeeda rasuulku u soo hooyay ahayd caawo umuu soo hooyanaya meesha rabo kale iska aadaya. hadduu rabo marka habeen dambe ama habeen ka xiga markuu rabo u yeeranayo oo leeyahay kale marka caaw adu ama gurigeed ugu tagay ama soo guri kale ugu yeeranayo hadduu rabo. turji man tashaa minhunna wa tuwi ilayka man tashaa waman ibtagayta mimman cazalta falaa junaaha calayk. kuwa dib u dhigtay haddaad u yeerato dhib ma leh, laba beri saddex beri. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن. سيداسا إني كو إندو دوكسدان وإندهود كو قبوسدان وفيعان وخير كو جراوية سقالك حاس النبي ساس النبي مدو ربو ولا بريستحبر ديبو دغايو markuu rabana u yeeranayo miduu rabo soo hormarinayo oo intuu caaw guriga wadana habeen daba ku noqonay islaayadii. ولا يحزن ويرضين ويسن مرغون او ايسن ولولين ولا يحزن ويرضين او رالي كن نقدان ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وحو نبيغو سيو wax alla wuxuu siiyo oo amara oo ah adiga leebran dib ku dhigay, adiga leebran guriga imaanaya, adiga saddex bran dib ku dhigay, adiga saddex bran guriga ku soo hooyanaya, adiga intaasoo lacag qaado intaasoo alaaba qaado, adigu hadda wax lagu siinay asbuuc dama wax ku siinay. wax alla wuxuu amro oo xaqiisa kiina qaadataan way, ama chief ka noqoto ama waxyaalahan adduunka ma taqaana oo kharashaadkiina nolosha adduunka dhar iyo ma taqaan lacag wax hartaan noqotay.
والله يعلم ما في قلوبكم إلهي قلبينا ولا صعد سقالكينا حاس رسولك قبو وحان أمر الله يدسين إلهي يدين سينيو هداد فلساني هداد ديدان وح قلبينا كوش إلهي ووجه اسكدا واحد كو هذا شاني وح كله وكان الله عليما وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما تاسنا واقعتين wax alla wixii rasuul rabbi rasuul amray way qaateen saasayna ku ahaadeen sagaalkii xaas oo nabiga ilaahay marka muxuu ugu abaalguday markii amarkii qaateen qaala tacaala لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لا يحل لك النساء هذه النبي محمد ناقدم بكم بنانا إن تقرسته سقال كان أتقبته ناق توبنات كم دري كرتين سقال إلى أتكلم وتنا أما أيو كرنتان أو سقال كبابان أما أدو قدمتيد ناق توبنات يكوتنا مجرته أيها قاعد تقولوا حرامته مال كل هذه كرتان مال أيها قبل أمرك إلهي شيء واقعتين الدنيا فراي كلب حان الله كذا فراي كلب حان ربي رسولي آخر دورتين إلى هنا وادورته هذا لغو دوره سقال كاس حاس كلا كم دري كرتين إلا ما ملكت يمينك قال الله لا دري أو لقى سوق قبصدي حبط أدونا لقى سوق قبصدي ما هنا ساسا إلهي هو أبل جدي مرك إلهي كبقين أو آخري أدون أي آخر دورتين أو ربي الرسول أي دورتين آخرين الدنيا الله كتجن كانت فردوس النبي ومشوا كتجن إن الله قال أي دورتين ساسا مرك حاس كالنبي وشرفت وضع يقيمه هذا وأها إلى هنا ساس وجه الله وحوي مركا قال قريشات أو نبي مركا على النوليد أو ده هي النبي وسجال حاسة وجورسان كرا سيء قبل تدور شراء أما سجال سما شراء ولا أقل قلي كرا تدور أمور سان كل حسن أمور سان كرا وحوي الشرك يجي أي صدق بقي لحظة سنة أي عبودة هين oo maka u yaaleen oo nabigu markuu u yiri ilaahay caawda waxaan aad qorateen oo birqalaxdaana ma taqaan xaq isaga tuura say ula yaabeen oo kale ayay ula yaaban yihiin rasuulkaana maxaa ilaahay u soo diray waxa loo soo diray nabi ciise adduunka ugu dambeeyay nabi intii ka dambeysay diinta nabi ciise dadkii inta badan waa ka baxeen waxa weeye adduunkii qas iyo lab iyo shirki baa qabsaday in marka ilaahay adduunkan asaga abuurtay in lagu caawiyo abuurtay in marka shirkiga la tirtiro oo akhlaaq xumada kale ay ku dhaqmi jireen waxa kamid ah gabdhaha oo nool bay aasi jireen gabdhaha oo nool bay duugi jireen akhlaaq xumada ku dhaqmi jireen waxa kamid ah aayada aabuhu ka dhinto wiilka marka aabii ka dhinto islaan aan hooyada ahayn islaantu dumaalay wiilka guursanay akhlaaq xumada waxa kamid ah afar gabdhood oo walaalaha bay isla qabeen gabar iyo eedeed bay isla qabeen gabar iyo habarteed bay isla qabeen axkaantaas marka ilaahay wuxuu keenay sharci iyo mataqaana manhaj lagu socdo oo dadku ku noolaadaan ilaa qiyaamaha la gaaro ayaa rasuulku loo soo dhiibay in shirkiga la tirtiro gabdhaha iyagoo nool la duugahayo oo faqri iyo gaajo awgeed looga cararayo waxaad siisa ma hayso loo duugahayo waa la joojiyey aayadii la dumaaliyey waa la joojiyey afartii gabdhood oo hal isla qabo walaalaha waa la joojiyey aayadii habaryartii eedii la isla waa la joojiyey waxaasoo axkaana oo degahaya oo ilaahay rasuulka u soo dhiibay ayay kamid tahay inuu sagaal xaas guursado nabigu inuu Caaisha 7 sano ku guursado ama 6 sano 9 sano kula aqal galo axkaamaha degahaya marka oo ayagu labadaasay mar walba soo qaataane kuwan lamida waxa kamid aha xilligii nabigu uu soo baxay oo rasuulka ilaahay uu soo saaray wiilka ayagu ay soo korsadaan oo yiraahdaan ma taqaana ana soo korsaday naagtu guursado meesha dumaali jirin oo waxay oran jireen wiilkayga xaaskiisa ma dumaalayo ilaa ana soo korsaday tiina waa aydina waa la burburiyay qaala tacaala وإذ يقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى فلما قضى زيد
فلما قضى زيد وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. wuxuu nabigu ka cabsanayay wiilkiisii Zayd ahaa oo asagu soo korsaday oo Usaama bin Zayd dhalay oo nabigu uu soo korsaday ayaa wuxuu guursaday nabigu u guuriyo u doonay eedadii gabadhay dhashay Zaynab bint Jahsh. markaas Ilaahay wuxuu ugu sheegay Zaynab inuu furi doono Zayd oo adiga nin wuxuu guursan adoontid waana dhaqankii ka jiray Maka markaas oo ceeb ay ahayd inuu ninku wiilu soo korsaday oo intii nabigu uu mataqaan ay soo degeen udcuhum li abaahim waxaa la oran jiray mataqaana Zayd ibn Muhammad baa la oran jiray saasay oran jireen. marka ayada soo degtaa aabiis loogu yeero Zayd ibn Arqam saas baa la dhahayaa lama dhahay Zayd ibn Muhammad loo joojinaya. shuruucdaas marka degaysa oo waxyiga markaas wuxuu nabigu ka xishoonayay dadka in la yiraahdo gabadhii wiilkiisa uu asagu u doonay oo wiilkiisii guursaday ayuu wiilkiisii markuu furay guursaday. markaas Ilaah baa inaad ka baqdo yaa xaq u leh inta dadka baqi lahayd. markuu ay muddo isqabaan oo furo adag guursan doona taas ba axkaamtay ka mid ah. hadday la yaabayn inuu nabigu 9 guursaday ama gabar 7 jira uu guursaday waxa weeye midaanba waa kana dhaqan hore jiri jiray ma waa dhaqankii hore jiri jiray waa la bedelay. waxaan bedelay wiilkan nabigu ma dhalin wuu soo korsaday in magaciisiina magacii aabihii dhalay oo runta loogu yeero gabadhu guursan nabigu guursan karo. intaas waxaan marka ugu gudbaynaa oo ku soo xiraynaa Aishaan u gudbaynaa maxay tahay sababka amarka uu nabigu siiyo aan cidna nabiga aysan ku eedeyn karin. qaala tacaala ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله لو سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له إلهي وحو رسولك أو فره أو أمره دب معهم رسولك كركس دب كما نقونيس. ما كان على النبي من حرج نبي كركس وحده ما فيما فرض الله له وحي إلهي وأمره والنبي وأمره ورسولك الشغل كيسابه واحد تاي واحد لوصو دريبه وحي إلهي وأمره أم بكو شقيا وحكى لكم ما شقيا عقلي سكما شقيا رسولك هوي سكما شقيا ضدك العقل وهوي كما شقيا ربيتان كولا كما شقيا ربيتان كما شقيا وحكو شقيا وحيه أو إلهي وسماء وسدتشي وأما قرآنه أما سنة النبي انت سمرك أحكام الله صور شيء وشرك وهريي oo galada laga joojiyay oo wiilka ma taqaan ay u yaqaaneen ana soo korsaday aabaan u ahay xaaskiisii lagu daray gabdhaha ay duugaan waxaan siina ma hayno oo la joojiyay. qaala tacaala وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. mid ka mid markii gabar loogu bishaaray oo leeyahay gabar baa ku dhalatay ayadoo nool bay aasi jireen gabdhaha ileen Soomaa markii la yiraahdo gabar bay dhashay xaaskaagi waxa weeye intuu wax alla wixii hoog iyo halaag ah wajiga soo saaro oo naarti in lagu bishaaray iska dhigo oo qarabiis u yeerto wuxuu leeyahay waxa igu dhacay miyaad garanaysaa balaayi hoog iyo halaag baa igu dhacay gabar bay dhalatay nolosha miyaan ku duugaa mise anoo ragga aan la kaftami karno oo meelaha rag isugu yimaadaan
oo fadhi ku dirarka iyo masaajiyada iyo shirarka caadiga iyo meelaha ganacsiga meelaha rag inta badan yimaadaan ma ka dhuuntaayo meelahaas cidlada iska warwareega oo markaan soo baxana wejiga iyo qoorta waxaan ku dubtaa go'o dadka waa iska qariya ceebta ilaan gabar baa i dhalatay saas bay ahayd marka nabiga la soo saaray dhaqanka isaga baa la baabiyey oo la gabar la aashayo ma jirto gabadhu wiilka la mid waxaad siisaan waxay u aasi jireen wax la siiya gabadha male raashin male midda kale saxaruhu waxa waa dhul iska banaan oo qoraxa oo biyana ma lahayn 300 kilomitir baa la dhaaminayaa oo mataqaan reemiyiga biyo la doonaya iyo 400 500 kilomitir oo la sii soconaya gabadha marka xooggeed inta kama bixi karo 5 bari 10 bari ma sii socon karto haddii dagaal iyo la isku soo qaato warma iyo seefana ma gaban karto taatikada dagaalku manaha jirkeedu ma ogola ileen buura laga dhacaya waa la iscayrsanaya waa la dhacaya waa la boodahaya kama bixi karto marka waxay maadaama dagaal gali karin 500 kilomitirna aysan dhaan ku dhaaminin waxa weeye wax la siiyana male raashin ma lahayn waagi hore dadku iska gaajeysna waxa la marka in ay nool la duugo saasay ayaga aqal noqotay tiina waa laga joojiyay intii kale aan ka soo hadlay oo ayada la guursanayo gabar afar gabdhood walaal isla guursanayo eedada iyo habaryarta iyo gabadhii la guursanayo habaryarteedii eedadeed waxaas oo dhan waa la joojiyay waxaasay ka mid tahay marka oo ilaahay wuxuu rabaa inuu shuruucdiisa ku fuliyo adduunyada rasuulkuna ilaahay buu wakiil ka yahay marka intaas aan soo hadalay oo kala ka hadli mahayaan gaalada iyo munaafiqiinta iyo shiicadu waxay ka hadlayaan rasuulka iyo xaasaskiisa see 9 u guursaday seebo Aisha 7 sano u guursaday 9 sano oo la aqal galay waxaan tagaynaa umuna Aisha marka قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم عبد الله بن سلام منافق وينا أيا شيكان ألفي وحو يري قوادي قرح بدنا هاي wiilkii saxaabiga ahaa oo isla hareen heshiis bay ku hareen gabadhu way fogaatay oo xaajay u baxday markay soo noqotaan rasuulkii saxaabada guuray bay timid ninkan hurda weyna oo saxaabi iska hurda bay u timid oo ratigiis inta diyaarsaday inuu dhaqaajiyo raba uu yiri hooyo soo fuul marka inta ka fogaaday markay fuushana hoggaanku qabtay rasuulkii ka dabageeyay barnaamijkaas wuxuu ka sameeyay film munaafiqnimo oo gaalnimo oo yiri waa barnaamij hore loogu ballamay ahaayeen wiilkan iyo gabadha cad oo qurux badan waa isla hareen saasuu nabigii u caayay iyo xaaskiisii waxa leeyahay marka in alladina jaa'u bil ifki usbatu minkum kuwa ifkiga iyo la yimid iyo maxaan ku raa masabidka Aisha ula yimid adinka qaar idin ka mid weeye laakiin Aisha ha u qaadanin inay waxaan dhib ku yihiin oo shar ku yihiin khayr inay yihiin u qaado midka arinta alifay oo oday ka ahaana dambi weyn buu leeyahay ilaahay agtiisa ilaa waxaan asaga alifay intii ku lug darsan ayagu nimbi walba intii asagu uu dambi galay cabirkiisu leeyahay laakiin kan uu ka weyn ninka wuxuu soo alifay weyn haddana suuqa wuxuu galeeyaa waan maqlay ma ana alifay ma dhahayo dadkan ka maqlay buu leeyahay laakiin ilaahay miyuu been u sheegi karaa ilaahay inuu alifay uu og yahay aayad kale qaala tacaala والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات كو حن iyo hadalkooda xunba waxay u sugnaadeen nimanka xun baa iska leh والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات gabdhaha wuu wanaagsanna nimanka wuu wanaagsan baa iska leh haddaba marka kuwa gaalada munaafiqiinta shiicada ah kuwa ridoobay diinta ka baxay Soomaalida
وحوية مركا آد رسولك حاسكيسا آد أفلقادينيسيد أو رسولك قوشيسي عايشة كهالليسيد وحدو صعوته إنا تراهده الخبيثات للخبيثات كو حن iyo hadalkooda xunba kuwa xunba iskale marka waxaad ka wadaa rasuulka ilaahay xaasaskiisii oo Aisha kowkata aflagaadeynaysa markaasaad waxaad ka dhigaysaa rasuulka xaasaskiisu inay xun yihiin asagu inuu xun yahay saasaad ula jeedaa markaasaa diinta ka baxaysa markaasaa ununka lagaa jarahaya markaasaa adduunya aakhira ilaahay ku cadaabahaya suurtagal maahan inaad umuna Aisha aad caydo oo rasuulku uu nabadgeliyo ma markaad ayada caydo rasuulkiina waad caydo ileen gogashiisii waad caayaysaa markaad xumaan ku tilmaanto Aisha rasuulka xumaanta ku tilmaamaysa ma kala harahayaan sallallahu alayhi wa alihi wasallam radiyallahu anhuma umuna Aisha iyo aabaheed Abu Bakar حوية مركا عائشة قف نوعي أهيد عائشة إله با أشيغ رسولك صلى الله عليه وسلم حاسكيس آخرية أدون بيني تهي جبريل با أوكياني صور كذا ودالا كتير كباران عائشة الله دوهو وحاسك أدوني آخر الله بضل أمنا عائشة أفرتن يتدوسن كدب النبي نولاي سقال سنو بنبي كلا قال سقال سنو قبي سيديتو من تشربو كغد انتي كدبنا دعيد غورسان كرتا مله مؤمنين تودن هويو تاي قالنا ما بغيبد وما سو دوان كره غبر مسلم اما عائشة نقطه او مؤمن كلا نقطه أفرتن يتدوسن دب نولاي ايضا ان الان كليgeeda حق علمiga culimadu waxay yiraahdaan qofka saddexaad aba afraad oo xadiis nabi ka wariyay bay xadiis ugu badan Abu Hurayra kow ah culimada qaar waxay yiraahdaan Abdullah ibn Amr ibn Aas baa laba ah uu qori jiray Abdullah waan xafidi jiray qaarna waxay yiraahdaan Abdullah ibn Umar baa laba ah Anas oo nabiga u shaqeyn jiray ayaa saddex ah afar bay Aisha ka dhigan qaarna Aisha saddex ka dhigan aqoon heerkaas ka gaartay ilaahayna waa kii hore u soo sheegay aayadaha hadda akhrinayno ulaa'ika mubarra'una mimma yaqulun waxay sheegayeen ilaahay waa ka bariyeela Aisha shuqul kuma la way waxa ay ku eedeynayaan oo ay leeyihiin wiil bay isla hareen iyo waa sinaysatay ilaahay wuu ka bariyeelay waa kii hore aan ku soo marnay lahum maghfiratun wa rizqun karim aakharna janno weyn bay leedahay weyn quraanka ilaa qiyaamo la akhrinayo ilaa intaas ayaa ilaahay ku sharfay oo ku amaanay oo ku bariyeelay إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم وكاس خير كاس أيا إلهي القرآن كدحيس ويبوها waxay ku sheegayeen ilaahay waa ka bariyeelay markii nabiga la weydiiyay yaad ugu jeceshahay bini aadanka wuxuu yiri Aisha rag ayaa u jeceshahay aabaheed Abu Bakar baa dhalay قال تعالى إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا وكا سورة توبة إلهي محوكو شيئا رسولك إنه صاحب كيسة أبو بكر ومرك هذا أبو بكر عايز رسولك إنه واعي اللي هو صاحب كيسة مرك عايشة أبو بكر صحابك اللي وكدوا اللي سكومة دوان كرو قفك أبو بكر عاية وقف النبي محمد عاية اللي هو صاحب كيسة لا تحزن إن الله معنا قد كمركي كوتشرين وي وقال لك عرين وسوه جرونيا أسوأ نول بو إنو بدل أيوه صحابة أوسي إشاري مركو تغانا واسقي بوسكي سي دحلي أو قاتي وكا هذا اسكميل بي كدوغين عمرنا وكله دوغين قفكي عمرنا سو عمريستي أو كلا أو مساجد كمدين نبي تغي صدحوا القبر واسكميل وي نينكاس هذا عايشة سي دالay qof marka qiimaheeda la gaari kara maaha qala ta'ala oo ful kayla wala
أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بلاير dadka xaqiisa iyo xuquuqdiisa ha ka dhiminina waa nebi Shucayb oo la hadlayo qoomkiisii wey beegay aad ugu xumaayaan oo markay dadku u cabirayaan kiilay u cabirayaan qaarna waa kala harayaan lacagtiina waa ka qaadanayaan kiilan ku cabirul qaarna uu kala qabaynaya oo xadayaan tuugay ahaayeen lama ogola marka qofka qiimaha Ilaahay siiyo sharafta iyo cilmiga iyo qiimaha iyo ninka dhalay iyo rasuulku xaaskiisii tahay iyo inuu dadka u jeclaa iyo inay caalimad ahayd iyo inay ahlu sharaf ahayd Aisha marka lama dhimi karo darajaas Ilaahay u siiyay iyo qiimahaas hoos looma soo celin karo ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين dhulkan xumaan ha ku sameynina fasaad iyo fisqi iyo mataqaana ha ku sameynina iyo qarbudad looma ogola waxay la wareegaystaan gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwa ridooday oo diintii laga saaray oo Soomaalida ama muslim kale ahaan jiray oo gaaladu ay qalbiga mataqaana ay ka qabsadeen markay carrada gaalada yimaadeen waxay ku anducoodaan diinta islaamku gabdhaha muslimka way xaqirtaa laakiin reer galbeedka iyo gaalada gabdhaha free bay ka dhigaan qaala tacaala aayadan dhageysa marka إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات ما هيسا ترسو فرها كل الله رق مؤمنين مسلمين يقبلها مسلماتك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رق مؤمنين يقبلها مؤمنين والقانتين والقانتات رق قانتين يقبلها قانتاتك والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات انت اسمه صعدان صومه واسغمد اسلامك واسغمد ايمانك واسغمد قانتاتك واسغمد والمتصدقين واسغمد صدقتي والصابرين واسغمد والخاشعين واسغمد والمتصدقين واسغمد والصائمين واسغمد انت سودن واسغمد هذه حق الرميه تهي هذه صدقه لا بخ تهي هذه صوم تهي هذه ايمان تهي هذه معناها اله لغا بقى تهي وحا سودن واسغمد واسمنين جنة هدي لا غلينا واسم اجري واسمنين waxa marka islaamku uu xaqiray gabdhaha ma jiraan ayagii gaalada ahaa oo nabigu markuu soo baxay noolaa ayaa gabadho nool aasi jiray aayadan waa idii akhrin oo uu rasuulka daayay gabdhaha lama aasay wiilashii la mid yihiin qofka marka aan hada lahayn aqliguna ku yar yahay cilmiguna ku yar yahay ayaa waxa loogu sheekeeyaa islaamka iyo diinta islaamka in maxamed gabdhaha way xaqireen baa loogu sheekay markaas uu hayay dhaha ilaan aqlina ma leh cilmina ma leh waa wax ma taqaana aan dhan walba ma taqaan eberka away haddaan su'aal idin weydiiyo hadda inta codkay maqlay inta igaari doonto aabaha iyo hooyada aad ka jecesha waa waalidkaad u fiirso meel kale dheer ba kula aadi maayo qof walba hadda warkayga maqlay ama maqli doona aabaha iyo hooyada yaa jecesha adoo de been aan sheegay run sheegay aniga kula hadlay su'aashii u soo celi adiga Cabdirashiid aabaha iyo hooyada yaa jecesha aniga hooyada baan jecel beenna ma sababta anu ilaa 10 sano ilaa 10 sano hooyada ma ku soo gaaray aabahay xamar buu iska ay jiray sanad iyo laba wuxuu iska maqnaan jiray marmar dhifa arki jiray hooyada laakiin ilaa aan ka gaaray 10 sano aydan faraq haystay saaxiib baa laha wala sheekaysan jiray wala ciyaari jiray nacnaabi siin jirtay ayada aqaanay odagaan mar dhifa arki jiray
qof walbana waa ila mid haddii xaqeeda loo soo noqdo 3 jeer aabba ka xaq badanta haye aw marka muslimka oo xaqiray hooyo iyo muslimka dumar xaqiray aw haddaad marka diintaadii cayr ka tahay oo aadan diintaadii aadan baranayn caqligiina aad cayr ka tahay gaal asaguba dhan mataqaan aakharo ilaahay ugu yaboohay jahannamo adduunna ilaahay ku cadaabaya aakharana ku cadaabaya hadduu inta kaa caqli badiyo kuugu sheekeeyo hooyada iyo walaasha iyo xaaskaaga iyo gabadhaada diintu waa xaqirtay gaalnimada markii gaalnimo noqdaan bay firiin noqdaan waa joogtaan maxay hayaan oo hadda mataqaana oo gabdhaha gaalada maxay gabdhaha muslimka hadda dhaamaan oo qiima oo ay leeyihiin oo la yiraahdaa ha laga dabato gabdhaha gaalada ba wax badan gabdhaha muslimka ka fiican oo nuxur ah oo la raadiyaa ma jirto way waa gaalnimo waxaad raadisaa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها رسولك يا سغالكيسا حاس يا عرورتيسا يا أهل بيتك قفك مؤمنك وحان خير يا برواقو يا دعو يا شرف يا قيمة يا أمان هين او حقيسا كإيمان كرتا مجرو وحشره وعدي شبكة بالله كإيمان كرتا قفك مؤمنك مجرتو قال صوارت المنافقين يكون ردوب دين تكبحي نار جهنم أي آخر سويسة أدون كانوا ونون كل غشره يا إله أدونك كو عذابه أي سويا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته